magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Labada kursi ee ka harsanaa 8 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Hirshabelle. Labadan kursi ayaa waxa ku tartamayay musharaxiinta kala ah Ali Shacbaan Ibrahim iyo Cabduqaadir Xanafi Sheekh Bashiir. kursiga labaad ayaa asna waxa ku tartamayay Zamzam Abdullaahi Xuseen iyo Naciimo Ibraahim Yuusuf. labada kursi ayaa waxa ku kala guuleystay Ali Shacbaan Ibrahim iyo Zamzam Abdullaahi Xuseen. marka kursigaani sidaad igu doorateen wuxuu noqon doonaa aniga anoo taas ka duulaayo inaan lagu soo taqeysanaynaa inaan u shaqeeyo bulshadaani kursigaan lagu doortay taas anoo ka duulaayo sidaan markii horena idin sheegay hadal jeedinteedii ugu horeysay howlkan aan ka jeediyay in matalaad dhab ah ay iga heli doonaan bulshadaan anigoo ku dareen noqon doona dhammaan shacabka reer Hirshabelle. marka waxaan shaqeeyo kursigaani mid shaqeeyo oo fadhiideen uu noqon doona 4 sano soo socota aad iyo aad aan u mahadsantihiin. waxaan mahad labaad u celinayaa guddoonka baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen iyo codka ay igu aamineen. waxaan Allah subxaanahu wa ta'aala weydiisanayaa in xilka ay idmeen ilaahay igu asturo siduu ilaahay raali ka yahayna aan uga soo baxo. waxaan si dhow oo la shaqeyn doonaa madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle. aad ayaad u mahadsantihiin. dhanka kale gabagabada kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo gabagabeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Luqmaan Xaaji. waxaa mahad oo dhan ay u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyay inuu noo idleeyo doorashadii 8 kursi aqalka sare Hirshabelle ku matali lahayd baarlamaanka federaalka. Ali Maxamed Warsame TV-ga Sahan Jowhar.